السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواada barnaamijkeena maalmaha dunida oo si toos ah kaga imaanaya stuudiyahan ku leenahay magaalada London waxaanu la socodsiinaynaa doodaashana meel bay dunida ka joogaan in bisha barakaysan ee ramadaanka inta lagu guda jiro aanu ku soo qaadan doono barnaamijkeena qaybtii su'aalaha iyo jawaabaha ramadaanka oo ah su'aalo iyo jawaabo kala gedisan oo aynu weydiin doono dhammaan doodaasha meel walba dunida ka joogaan dawadayaashaas oo fursad u heli doona in su'aalaha iyo jawaabaha haddii ay saxaan in ay ku helaan abaalmarintaasoo alaaba ah xagga dhaqaalaha ama lacagaha oo qofka markuu su'aalaha la weydiiyo haddii su'aalaha uu saxo ugu yaraan 3 su'aal uu 3daa su'aalood uu ku heli doono haddii ay beedmo $100 meel walba dunida ka joogana aynu gaarsiin doonaa haddii ay beedmo wuxuu barnaamijku soo gali doonaa maalmaha khamiista iyo jimcaha oo aynu ugu talagalnay in ay yihiin maalmaha fasaxa ay yihiin badana dadka jooga dhulkii hooyo ama bariga iyo geeska Afrika iyo waliba maalmaha sabtida iyo axadda oo ah maalmaha badana qurba joogtu ay fasaxa yihiin marka barnaamijku wuxuu soo gali doonaa 4 maalmood oo maalinta khamiista maalinta jimcaha maalinta sabtida iyo maalinta axadda afartaas maalmood ayuu soo gali doonaa haddii ay badna barnaamijku oo daawadaashu meel walba caalamka joogaan ay dunida kaga qayb qaadan karaan qadka telefoonka iyagoo soo wacaya telefoonada qaybta hoose ee shaashada barnaamijka kaga yaala qaasatan dhanka WhatsAppka si fursad ay ugu helaan daawadaasheena barigii geeska Afrika jooga aynu ognahay inaysan soo wici karin telefoonada caadiga sidaa daraadeed meel walba dunida ka joogtid waxaad fursad u heli doontaa inaad qayb ka noqotid barnaamijkeena su'aalaha iyo jawaabaha bisha barakaysan ee ramadaanka waliba aad ku guuleysatid su'aalaha haddii aad ku guuleysatidna aad heli doontid abaalmarintaada meel walba oo aad caalamka ka joogtid haddaba barnaamijku muxuu ka koobnaan doonaa barnaamijku wuxuu ka koobnaan doonaa qaybo kala duwan tusaale ahaan su'aalo waxaa jiri doona diiniya waxaa jiri doona su'aalo ku saabsan taariikhda dalka iyo dadka Soomaaliyeed qaas ahaan goobaha taariikhiga magaalooyinka taariikhiga taariikhii kala gedisnahay dalka uu soo maray iyo waliba taariikhda dadka Soomaaliyeed ha noqdaan kuwii jooga gudihii dalka ama dibadiisaba dadkaas oo noqon kara tusaale ahaan kuwa magac ku dhaxlay bulshada Soomaalida hadday noqoto dhankii isboortiga dhankii fankii sugaanta dhankii siyaasadda dhankii culumaa diinkii qaybaha kala gedisan ee bulshada ururada haweenka dhalinyaradii dhammaan qaybaha kala gedisan ee bulshada ayay fursad u heli doonaan in barnaamijka inta loo guda jiro bisha barakaysan ee ramadaanka ay su'aaluhu ka yimaadaan waxaa kaloo xusid mudan in su'aaluhu ay ahaan doonaan kuwo isku dheelitiran oo daawaduhu markuu qadka uu soo galo tusaale ahaan haddii 3 su'aalood ugu horeysa aad saxdid waa $100 marka waxaa laga yaabaa su'aasha ugu horeysa inay noqoto su'aal diiniya tusaale ahaan su'aasha labaad waxaa laga yaabaa inay noqoto su'aal ku saabsan isboortiga ama ciyaarihii oo kale tusaale ahaan waxaa laga yaabaa su'aasha saddexaad markaad fursad u heshid qadka telefoonka inay noqoto su'aal taariikh oo ku saabsan taariikhda dunida maanta aynu ku noolnahay ama taariikhii hore ama taariikhda dalka iyo dadka Soomaalida ama guud ahaanba wadamada kale ee geeska Afrika marka su'aaluhu ma noqon doonaan su'aalo hal mar qofku markuu qadka soo galo 3 su'aalood bay wada noqonayaan 3 su'aalo diiniya ama 3 su'aalo ciyaara ku saabsan ama 3 su'aalo ku saabsan taariikhdii kale ama xisaab ku saabsan ma noqon doonto waxay ahaan doonaan taariikhuhu iyo su'aaluhu kuwa kala gedisan oo aan rabno in daawaduhu uu maskaxdiisa ka shaqaysiiyo fursadna u helo markuu qadka soo galan ognahay kumanaan kun oo idinka in kamid ah inay qadka rabaan inay soo galaan kumanaan kun oo in kamid ah inay rabaan barnaamijkeena nagala qayb qaataan kumanaan kun oo in kamid ah inay barnaamijka kaliya inay ka qayb qaataan ay waxna ka faa'iideystaan dhaqaale ahaanna ay ku guuleystaan abaalmarinada daawadaashin badan oo kamid ah marka waxyaabaha isweydiiyaan badanaa waxaa kamid ah sidee bay lacagtu ugu soo gaaraysaa haddii aad kamid tahay daawadaasha barnaamijka ku guuleystay ku sugan dhulkii hooyo ama dibaddaba waxaanu barnaamijka lacagta u soo dhigaynaa qofka xawaalada Taaj tusaale ahaan haddii dalkii aad joogtay telefoonkaaba kugu rideena oo qasab ma aha inuu qofku meel kale aado inagoo ku soo marsiinana adeegyada shirkadda Taaj ee dhaqaale ahaan ay ku dirto barnaamijyada ama ahaato xawaaladaha markii la dirayo kale marka qofka telefoonkiisa lacagta loogu diraya meel walba gudihii dalka uu ka joogo haddii aad joogto wadamada kale caalamkana xawaalada ayaa lacagta lagu soo dhigaya taasoo macnaheedu ay tahay meel walba dunida ka joogtid inta loo guda jiro bisha barakaysan ramadaanka haddaad kamid tahay daawadaasha barnaamijka ku guuleysta waxaad heli doontaa fursad aad barnaamijka kaliya ma kaga qayb qaadanaysid aad ku guuleysatid su'aalaha kale soo noqonaya daawadaashu inay weydiiyaan waxaa kamid ah maalmaha uu soo galaya waa fahmnay saacadaha barnaamijku soo galaya waxaynu isla fiirinaa dhinacyo kale gedisan waxaynu ognahay Soomaalidu meel walba caalamka inay maanta joogto ama gudihii dalka ha joogaan ama dibadiisaba ha joogaan
tusaale ahaan haddaad joogto gudihii dalka waxaynu ognahay xilliga afurka inay ku habboon tahay marka qoysku wada fadhiyo in dadkii qadka telefoonka soo galaan weliba waxay ku wanaagsan tahay telefoonkaa ka daawanaysaa barnaamijka barta internetkeena ku leenahay baraha bulshada ama ha noqoto facebook ama ha noqoto youtube ama ha noqoto twitterkii oo qasab maaha qofka inuu television daaro telefonkiisa ayuu kala socon karaa isagoo afuraya ama iyadoo afuraysa isla markaasna telefonka whatsappka ayaad nagala soo xiriiri kartaa oo haddaad fursad u heshid aad barnaamijka soo galaysaa xilliyadanu jecelna barnaamijka inuu soo galo waa 4:00 magaalada London markay tahay guud ahaan geeska Afrikana ay u tahay 6:00 ama 6:00 oo fiidnimo oo ah xilliga afurka markii maghribkii la soo tukada kadib ay qoyskii wada fadhiyaan dadkii wada afurayaan la wada fadhiyo inuu jecelna qof walba inuu fursad u helo inuu qadka telefoonka soo galo su'aalaha waxay noqonaysaa su'aal walba $30 su'aasha koowaad oo $30 tan labaad oo $30 tan saddexaad waa $40 si boqolkii loo gaarsiiyo marka haddii koowaad aad saxdid waa $30 tan labaad aad saxdid 30 baa kuugu darsamaya waxay ku noqonaysaa $60 haddii aad saxdid midda saddexaad ee saddexda su'aalood laga rabo daawaduhu inuu saxana waxay noqonaysaa midda saddexaad $40 marka saddexdii su'aalood markii la isku daro waa 30 iyo 30 iyo 40 oo su'aasha ugu dambaysa 40 tahay halkaas wuxuu daawaduhu ku helayaa $100 kadib waxaynu siinaynaa fursad ah war daawade gabar iyo wiil cidda tahay ama qofka tahay markaa qadka ku jira da'da doontiba ah laakiin qofku inuu qaangaar yahay oo caruurda lama rabo in barnaamijka laguma talagalin waxa lagu talagalay dadka qofku inuu qaangaar yahay inuu qofku yahay qof ka fogaanaya goob buuqa inuu joogo maaragtay meel internetkeeda xoog uu leeyahay sababta waxa laga yaabaa labada su'aalood ugu horeysa inta saxdid in qadka uu kaa go taana ma doonayno annaga laftirkeena fursadan qadka kuugu soo celino way nagu adkaanaysaa barnaamijku waa mid toosa oo live u baxaya marka waxaan rabnaa in qadkaagu uu xoog yahay meesha calashaan internetka haysatid uu xoog ku yahay oo internet xoogan aad haysatid isla markaana aan xasuusinayna daawadaasha meelba caalamka joogaan inay ka fogaadaan goobaha buuqa sababtoo ah su'aasha aan ku weydiinayna haddii meel buuqa aad joogtid waxay keenaysaa inaan kaa shakino oo aan isleenahay dadka uu la jooga qofka amay u sheegaan ama ay u sharaxaan su'aashaynu ku weydiinayna su'aalaha markaynu daawadaasha weydiino waxaynu siinaynaa 30 ilbiriqsi oo ah 1 2 3 4 5 ilaa 30 ilbiriqsi haddii 30 ilbiriqsi gudahood saacadda aynu haysanno markay noo sheegta aadan kaga jawaabin su'aashii xilliga loogu talagalay taa macnaheedu waxa weeye inaynu kaa gudubno innagoo og in waqtigu uu kaa dhacay waxay noqon kartaa su'aasha koowaad waxay noqon kartaa su'aasha labaad waxay noqon kartaa su'aasha saddexaad intaba marka daawadaasha waxaynu ka rajaynaynaa dhammaan meel walbay joogaan inay taa u hoggaansamaan oo ay tixgeliyaan in daawadaashu kumanaan kala fursadda raba oo qadka ku jira inay iyaguna dareemaan in dadkaas fursadda la siiyo daawadaashu waxay kaloo soo weydiiyeen sidee barnaamijka uga qayb qaadan karnaa way fududaa barnaamijka waxa uga qayb qaadan kartiin whatsappka oo ah meesha qof walba uu awoodo haddaad internet haysatid haddii aan nirana telefon toosa soo waca daawadaasha bariga geeska afrika jooga lambarka UK inay soo wacaan lacag badan bay ku noqonaysaa qadkii bay ku jirayaan marka waa inaan u naxariisano daawadaashii oo aan fursad u siinay in iyagu laftirkoodii barnaamijka qayb qaataan si marka taas uga qayb qaataan waxaanu fursad u siinay internetkaaga inaad inta u dhawaatid si lacag la'aan oo bilaash aad ku soo wacdid telefon lambarka qaybta hoose ee shaashada barnaamijka maraya iminkaan la hadlayo waxaad kaloo nagala soo xiriiri kartiin bogaggeenu ku leenahay barta internetka sida Facebook barnaamijkeena maalmaha dunida bogga YouTube-keenu ku leenahay maalmaha dunida Twitter-keenu ku leenahay maalmaha dunida boggeena Instagram-ka waxaanu ku leenahay maalmaha dunida ama waxaad booqan kartaa website-keena www.maalmahadunida.com ama WhatsApp numberkeena oo ah calaamada plus baad ku bilaabaysaa 447 939 306 oo daawadaashu ay iminkaba shaashada barnaamijka ay ka arkayaan waxaa sidoo kale barnaamijka kala socon kartiin bogga aan maalmaha dunida kaliya ma ahane ee Facebook sidoo kale bogga Brit Somali TV oo ah bog aynu wada shaqeyno oo daawadayaal fara badan oo barnaamijka ku xidhanna ay ku xiran yihiin oo jecelnahay inaanu fursadda ballaarino oo daawadaashu labada dhinac bay fursad u helaan inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaankana waxaad la socon kartiin maalmaha Khamiista Jimcaha Sabtida iyo Axadda oo qaybta hore baan kugu sheegnay muhiimadda u leedahay Khamiistii Jimcaha inay dadkii dhulkii hooyo joogay fasax yihiin maalmaha Sabtida iyo Axaddana dadkii qurbaha jooga ayaa fasaxa marka labadii dhinacba fursad baynu siinaynaa waa Khamiis Jimce Sabti Axad afarta maalmood xilliga bariga Afrika waa marka u tahay 6:00 xilliga fiidkii oo waliba maghribkii ay tahay la afurayo inagana markaas waxay noqotaa 4:00 ee waqtiga magaalada London waxaad nagala socon kartiin bogaggeena waxaanu rajaynaynaa inaad ka mid noqotiin guulaystayaasha fariimihiina noo soo dira fikradihiina noo soo dira barnaamijka la wadaaga asxaabtiina sidoo kale su'aalaha iyo jawaabaha ku habboon barnaamijka noo soo dira si asxaabta ku xiran barnaamijka aynu ula wadaagno haddii su'aalaha iyo jawaabaha noo soo dirtiin kuwa
ku habboon barnaamijka yihiinna waxaanu ballan qaadanay inaanu kusoo qaadanno barnaamijka su'aalaha iyo jawaabaha noo soo dirteen qaarkood isla markaana magacyada aan sheegno dadka noo soo diray oo aan kaga mahad celinna mar walba waxaan la socodsiin doonaa anigoo maxamed siciid saxaaf waxaan fursad siin doonaa qof walba meel walba dunida ka jooga haddii ay bidno waxaan idinkaga tegayaa meel baad caalamka ka joogtaan ramadaan wanaagsan sidaas iyo nabadgelyo